kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada galka wararka qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo ammaanay ciidamadii lagu soo tababaray dalka Eritrea. waxaan rajaynayaa inaad noqotaan duufaan afuufa oo dabar gooya oo tirtira cadawga Soomaaliyeed. dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay wada hadal ay kula jirto kooxda Al-Shabaab. wada hadal iyaga soo codsaday laakiin waxa weeyaan waxa ila tahay shabaab yaana dhihina khawaarijtu waa laba nooc iyo sababta uu u baaqday kulankii golaha shacabka ee maanta la filayay inuu ka furmo magaalada Muqdisho. qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso leh ayaad ku dhageysan doontaan warka galka wararka. aan ku bilownay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta kormeer ugu tagay xerada General Gordon ee magaalada Muqdisho oo ay degan yihiin gurtubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka ee tababarka dhawaan ku soo qaatay wadanka Eritrea. ra'iisul wasaaraha oo la hadlay ciidamada ayaa xusay in shacabka Soomaaliyeed ay aaminsan yihiin in Al-Shabaab muddo kooban ay kaga saari karaan goobaha ay kaga sugan yihiin dalka isla markaana uu garab ka siin doono sidii ay ciidamadaasi u sifayn lahaayeen Al-Shabaab. ka yihiin khawaarijta dalkiina hooyooyinkiin iyo abayaalkiin iyo walaalihiin maalin walba dhibaatada ku haya. sumcadda ka dilay dadkeennii, sumcadda ka dilay dalkeennii, diinteennii dhibay, dadkeennii qixiyey, in badan agoomeeyey, in badan rajooyin ka dhigay, in badan laxaadkoodii weysiiyey ayaga oo aan wax ay geysteen jirin, aaminah hoteeladooda jooga, shaqooyinkooda haysta, yaanyada iibsanaya, arday wax baranaya, hooyo kawaan hilib saaratay oo ilmaheeda ku biilanaysa, intaba ayagoo isugu jira inta loola imaado gawaari qarxaysa iyo dad qarxaya la baabi'iyo. cadowgaas jabkiisii ayay duufaan tahay. mudane Xamse Cabdi Barre ayaa dhanka kale waxa uu baaq u diray dhalinyarada Soomaaliyeed ee weli ka barbar dagaalamaysa Al-Shabaab, kuwaas oo uu sheegay in ay fursad u haystaan lana joogo xilligii ay isku soo dhiibi lahaayeen ciidamada qalabka sida. wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xildhibaan Cabdifataax Qaasim ayaa sheegay in kadib guuldarro soo gaadhay kooxda Al-Shabaab ay codsadeen in wada hadal lala galo. wasiir ku-xigeenka oo warbaahinta kula hadlaya xarunta golaha shacabka waxa uu sheegay in cid kasta oo ka tirsan shabaab oo dalkan dhibaato ku haysa loo baahan yahay in la soo dhaweeyo, balse kuwa ajaanibta loo baahan yahay in la wajaho oo gacanta loo qaado. araxya gaadma iyo miinooyin waxa way ku soo koomay iyo beegsiga waxa way shacabka, laakiin ciidamada waxay heegan u yihiin inay kooxdaasi cashar u dhigaan sida aad ku aragteen meelo badan waxa way la wareegeen. maanta iyaga wada hadal ku jiro, laakiin annaga maanta waxay naga taagan tahay wax la yiraahdo argagixiso in Soomaaliya waxa weeyaan ay waxa way laga ciribtiro ayaan go'aankeeda qaadanay. madaxweynaha uu qaatay, golaha fulintana waxa way ku shaqeynayaan, ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada deegaanada waxa weeyaan diyaar waxa way ugu yihiin. saxaafadana aan rabno inay waxa weeyaan ku taageeraan dhammaan inta jiida hore ee dagaalka waxa way ku jirta. wada hadalka ma iyaga soo codsaday Al-Shabaab. wada hadal iyaga soo codsaday laakiin waxa weeyaan waxa ila tahay shabaab yaana dhihina khawaarijtu waa laba nooc. noocna waxa weeyaan waa ajaanib, noocna waxa weeyaan oo kuwa dalkan u dhashay. kuwa dalkan u dhashay fursad waa leeyihiin, laakiin kuwa kale waxa weeyaan duulaanka ku yimid uma lahan wax xaq ah waxa weeyaan lagu wada hadlo. hal wada u furan wadada u furan waxa dalka inay isaga tagaan. xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta qorshuhu ahaa in ay kulan ay ku yeeshaan mid ka mid ah kulamadoodii caadiga ahaa, hase yeeshee waxaa baaqday kulankaasi sababo la xiriira kooram la'aan kadib markii xildhibaanada intooda badan ay soo xaadiri waayeen kulankaasi. ajadaha kulanka maanta ee golaha shacabka ayaa waxa uu ahaa akhrinta koowaad ee hindisa sharciyeedka hay'adda sirdoonka, hase yeeshee aysan suuragal noqonin in kooramka maanta uu qabsoomo. gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe oo aad uga carooday baaqashada kulanka golaha shacabka ayaa sheegay in ay tahay mid aan wanaagsanayn in xildhibaanada iyagoo caadifad qaba oo aan fasax
ku maqnayn inay ka maqnaadaan kulamada golaha shacabka ee shaqada iyo waajibka u leeyihiin. waxaan joognaa 5 saac iyo waxa la jiraan marka ayadoo maaragtay 5 saac la joogo waxa soo xaadiri waayay xildhibaanadeeni shaqada noo taala 20 iyo dhowr sharci ayaa noo yaala hindise sharciyeed oo aad iyo aad muhiim u ah dadka horta yimid subaxii waqtigii loogu talagalay xildhibaanada ah runtii waa idinku mahadcelinayaa dadkii ayada oo isku xuquuq leeyahay waajibaadkana saaran isku mid yahay dadna subaxii 3 saac markii la balamiyo ay soo fariisanayaan ayada oo waajibaadkoodii dastuurka saarnaa ummadda ku matalayeen diyaar u ah dadna markii hore waxay noo imaan jireen 4 saac 5 saac 6 saac ay noo imaan jireen hadda waxaa bilaawtay badna waqtigii la gaaro oo kooramkii la waayo xildhibaanada sharafta leh waad ogtihiin ummadda Soomaaliyeed waxay noo dooratay waxay naga sugayso warkii aad kala socoteen janalka galka wararka daawadayaal waa naga intaa waxay idila socodsiinayaan aniga Axmed Cabdi Maxamed inta ku kulmayno warkan lamida waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.